السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ciidamadii ugu badnaa oo ka socda dowladda Turkiga isla markaana la qorsheynayo in ay qaadaan tallaabo degdeg ah ayaa soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haddaba waxaa halkan idinkula wadaagayaa tirada ciidamada ka socda dowladda Turkiga iyo sidoo kale waxa loogu talagalay in Muqdisho ay ka qabtaan iyo warar kale oo hadda soo baxayo oo ku saabsan ciidamadaasi iyo howlgalka ay ka qayb qaadanayaan ayaan halkan idinkula wadaagayaa. Ha yeeshee waxaa marka hore idinka codsanayaa inaad muuqaalkina sii gudbisaan, like gareysaan, share gareysaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. Waxaa helnay oo aan ogaanay in dowladda Turkiga iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ay go'aan ku gaareen in ciidamo loo soo diro gudaha Soomaaliya, waxaana hadda soo gaaray in ka badan 500 oo askar. waxaana maanta la arkayay iyaga oo ka soo degaya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. Su'aasha dad badan ay isweydiinayaan waxay tahay ciidamadan maxay u soo gaareen magaalada Muqdisho? ciidamadan waxaa la sheegay inay u soo gaareen magaalada caasimadda ah Muqdisho inay ka qayb qaataan howlgalka dalka looga xoreynayo kooxda khawaarijta ah oo dhawaan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka kala wareegay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana halkaasi la sheegay inay ku qabteen ciidamo iyo saanad ay lahayd dowladda federaalka Soomaaliya kuna dhacday kaarto xumo dhinaca dowladda iyo sidoo kale saraakiisheeda. ciidamadan waxaa la sheegay in qaarkood ay ka qayb qaadan doonaan duqeynta xagga cirka ah oo hadda ay ku soo biireen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga, qaarkoodna ay sidoo kale istiraatiijiyadda ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya qayb ay ku lahaan doonaan sida xogta aan ku helnay. baarlamaanka Turkiga ayaa sanadkii hore bishii July ansixiyay sida aan ogaanay in ciidamo loo diri karo gudaha dalka Soomaaliya iyaga oo xoojinaya tayada iyo farsamada ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya, qaybna ka qaadanaya howlgalka culus ee dhinaca cirka ah lagala dagaalamayo kooxda si guud ahaanba gacanta dowladda Soomaaliya loo soo geliyo magaalooyinka iyo degmooyinka ka maqan, ugu dambeyntiina halkaasi looga xoreeyo kooxdan oo hadda dowladda federaalka Soomaaliya aad ay ula dagaalamayso. qorshaheeduna uu yahay in guud ahaanba dalka ay ka saarto deegaano ka tirsan dalkana lagu qabto doorasho qof iyo cod ah sida dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga ay ku heshiyeen. howlgalkan socday sanadihii aynu soo dhaafnay waxaa qayb ka ahaa oo kaliya dowladda Mareykanka oo xagga duqeymaha qayb ka ahayd, haddana waxaa ku soo biiray dowladda Turkiga oo qayb lixaad leh ka qaadanaysa. adeeg ahaan sidee u aragtaa in ciidamo ka socda Turkiga loo soo diro gudaha Soomaaliya oo qayb ay ka noqdaan howlgalkan? qaybta hoose noogu reeb muuqaalkana si gudbi la garay share garay oo la sii wadaag asxaabtaada.